السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي والله ku xulan channelkan Somali Network Classroom ku soo dhawaada mar labaadiyo iyo mar saddexaad waxay noo socday koorskeeni Computer Network Plus kana weerameynay asaasiyaadka iyo gundhiga cilmiga networkinga. waxaan marinay chapterkiisii 8 ee IP subnet/VLSM and IPnet chapterkaas aan marinay fidigan ka horeeyay ayaa waxaan soo gaarnay lafdhabartii chapterka oo ahaa IP subnet. haddaba IP subnet waxaan soo dhignay IP subnet muxuu yahay, IP subnet muxuu faa'iido leeyahay. maanta waxaan ku daraasaynaa tusaale ciwaan iyadoo la qaybinayo. ilaa IP subnet wuxuu ahaa hanaanka ciwaanka kaliya looga kala dhigo ciwaano fara badan ama network ID kaliya haysatay looga kala dhigo more than network ID, hal wax ka badan oo network ID ama network address. haddaba tusaalaan fiirso waxa la fahmay su'aali nisful jawaab su'aasha inta waa jawaabta barkeed midna ku darso chapterka ma kala marayo qalliga buug lagama maro oo waa xisaabaad tusaaleyna koobad oo xisaabaad sidaa darteed waxaan maraynaa 9 step. waxaan maraynaa san tusaalaan uga shaqeyno 9 tusaale ama waxaan maraynaa 9 baan ka wadaa 9 marxalado ama 9 step. sidaa darteed mar walba waxaan rajaynayaa halkii step inaad video ka qabsatid oo aad la socotid oo aad tijaabsid stepka inaad fahanteen kale. hay tusaalaan fiirso waxa lagu yiri qalinka haddaan la soo baxno waxa lagu yiri one day maalin baa tusaale waa tusaale koob saddex tusaale markaa kala dhigana tusaale walba video baan u geyniyay insha Allah. waxa lagu one day maalin baa your supervisor maamulaha ka sareeya walks to you ku yimaadey saying here isagoo kugu leh is network ID ama network address. qodobkaas waa muhiim. meeshaan ku aragnaa network ID iyo meeshaan ku aragtay network address is same meaning waa isku macno. network ID iyo network address waa isku macno ya kulba ka darayto kii kala ku fasiro. hay waxa lagu yiri network ID ama network address kii uu kugu yiri waxa weeye 192.168.1.0/24. itan dhowr salaan ka weydiiyo dad halkan horta waa galaasi CADR kiiso imsa waa 24 imsa ayaa network party saddexdan Soma saddexdan baa network party qaybtan waa maxay waa host party Soma waxa Soma siyahay Soma ana iska weydiiyay laakiin wax lagu weydiinaya ma waxaad meel loogu qortaa qodobkaas oo inoo muhiim. ciwaankaas ma artid ciwaankaas saamin badan buu nagu leeyahay meel loogu qor. ciwaanka la kala jibinayo waa ciwaanka la 192.168.1.0/24. ciwaankaas la kala jibinaya waraaqa meel loogu qor. okay waxa la goro doobo ciwaanka ku sheegay ku please fadlan buu ku supervisor ka please fadlan hadda tahay maadaama network engineer tahay hebelow create waxaad samaysaa 3 separate networks. xaqa qodobka fiirso 3 meel walaal asal mariyo waxa ka dhigata waa kelmad muhiim ah. 3 buu ku saddex separate network saddex shabakado oo kala go'an samee oo ama subnets. qodobka meel ku qoro shabakad imsa ciwaankaaga maxay network ID-gaaga waa ka imsa loo kala jibinaya saddex baa loo kala jibinaya halka imsa ku saddex. haddaba meel ku qoro haddaba meel ku aragtid networks iyo dad ku aragtid subnetsna iyadana waa isku macno. meesha waxaan ku network ID meesha ku aragtid iyo address meesha ku aragtid waa muhiim waana isku mid baan ku network address waxa jira network iyo subnets meesha ku aragtid iyaguna waa isku mid. hadalka soo koobo 192.168.1.0 waa ciwaanka midhow la kala jibinayo. imsana loo kala jibinaya saddex labada ereyna waa muhiim. ciwaanka la kala jibinayo waa ciwaanke waa 192.168.1.0 imsa loo kala jibinaya saddex. hay wuxuu ku yiri for coffee shop waxa oo meherad cafe oo la yiraahdo Somali cafe ayaa loo sameeyaa ayaa iska lahayd ciwaanka 192.168.1.0/24. haddaba saddexda ciwaan maxaa lagu kala falaya ilaa halka ciwaan wuxuu loogu filnaa waa saddex ciwaan uu kala jibin. isaga ku sheegay wuxuu ku yiri supervisorkii ku sareeyay wuxuu ku yiri waa subnets maxaa ku macneen waa network Soomaali wuxuu ku one network hal shabakad waxaan u asteynaa uu ku yiri for the office qolada office ka isticmaalaya halka shabakad halka network ama halka subnet yaa isticmaalaya qolada office ka. okay kan labaad buu ku yiri ilaa saddex baa loo kala jibinaya kan labaadna wuxuu ku one subnets midka subnetka kalena waxa lagu adeegsanaya front desk or storage room. qolada maxay qolada kaydka ama
كيدنka hore fadhiya ayaa adeegsanaya haka laba ciwaan soo ciwaan kasta xal adeegsanaya public use dadka meherada imanaya customerka ayaa adeegsanaya hadalka soo koob maxaa la kala jibinayaa hal ciwaan oo ah 192.168.20 meel loo qoro ciwaanka madhow la kala jibinayo imsa loo kala jibinaya saddex 3 networks ama 3 subnets kulba kan ku ilaa waa kii kale hadda hal ciwaan iyo isticmaalaya qolada office qola kale ayaa subnetka labaad ayaa isticmaalaya qolada soo dhaweynta ama qolada kaydka kastaxan ayaa isticmaalaya customer ama public use inta marka meel loogu haysid inta soo su'aashi inta soo maxay waa fahamku hadoo walagu sheega sama shan shaqa laga rabo adiga to shan shay baa laga rabo ko waxa laga rabaa baa lagu yiri ko waxa laga rabaa shaqada koobaad network ID shabakad walba baa waxaan ku yiri halkii ciwaanaha 192 qodobka meel u fiirsan waxaan ku yiri 192.168 waa la kala jibinaya sama marka la kala jibiyo qolo walba waxa ila xaaraysa network ID u qaar ama network address u khaas network ID u khaasa ama network address u khaasa oo iskumid ay lahaanaysa waxa laga rabaa shabakad walba saddexdii shabakadoodba ama saddexdii subnetba mid walba network ID-geedu khaas ka mid walba subnet mask u khaasay sabna wasan garana soo de shabakad walba subnet mask-geedu khaas ka shabakad walba host ID range-geeda laga rabaa shabakad walba inta ciwaanay laga adeegsanaya laga rabaa shabakad walba broadcast ID-geeda laga rabaa hadalka soo koob adiga laba shay baa lagu siiyay shan shayna waa laga rabaa laba shay waa lagu sheegay labada shay lagu sheegay waxa weeyaan ko ciwaanka la kala jibinay oo ah 192.168.20 midda waa lagu sheegay midda labaad lagu sheegay inta loo kala jibinay oo ah saddex marka labada lagu sheegay adigana shan shaqo lagu diray shanta shaqo waxa weeyaan midda ciwaanka la kala jibiyo shabakad walba ciwaan gooniye lahaanaysa ciwaankii gooniye lahayd sheeg oo ah network ID amala sota shabakad walba ciwaan gooniye lahaanaysa ciwaankeedii goonida ahayd sheeg shabakad walba waxa lahaanaysa sabna maaskeeda sheeg shabakad walba host ID ba lahaanaysa host ID ku xiyaa uu sheegi doona iyadana sheeg shabakad walba inta ciwaan ee laga adeegsan karayo ee computer la siin karayo iyagana sheeg iyadana waxa sheegaysa ciwaanka ay broadcast go maxay shabakad walba waxa lahaanaysa ciwaan ay ku wada hadasho haday dhamaan rabto maxaan ka wada tusaale broadcast-ga dafanku kaasiyo waxa weeyaan haddii ay ka noo yeelaan 10 computer oo aan rabno 10 ka computer when same time we talk hal waqti aan la wada hadalno ciwaanka lagu la hadlayo broadcast ID marka waxa lagu yiri shabakad walba madhowka gooni loo sameeyo waxay lahaanaysaa network ID u khaas ah iyo ciwaan ay ku wada hadasho oo dhamaan ay markuu wada hadasho shanta shaqada horta laga rabaa laba shayna waa lagu sheegay shan shaqana waa laga rabaa haddaba si aad uga shaqaysid waxaan maraynaa 9 step waxaan maraynaa 9 step step 1 9 step baan maraynaa soo step 1 fiirso waxaad samaysanaysaa table ka la sample subnetting table ka baad samaysanaysaa waxaad samaysanaysaa table ka yar ayaad samaysanaysaa horta aan ku weydiiyay waxaan ku yahay meesha ku aragtay ID meesha ku aragtay baan ku ID iyo maxaa isku mid ah iyo address bas ku macna soo meesha ku aragtid qodobka fiirso waa waxyaalaha madhow naga soo baxay kamid dantan masaxo intaan sagaalka step buu gudagelin saynu xalino meesha ku aragtid baan ku yiri network ID iyo network address waa isku mid meel loogu qor waa naga hor imanaysa meesha ku aragtid networks iyo meesha ku aragtid subnetsna iyaguna waa isku mid inta ay la fahantaa halkan u qaaday waxaan ku first step saad uga shaqaysid shantii su'aalada lagu diray talaabakooda qaas waxa weeyaan sameystay table kala sample subnetting table ka wuxuu sheegayaa wuxuu ka kooban yahay imsa column wuxuu ka kooban yahay column-kii koobaad column-ka labaad column-ka saddexaad column-ka afraad column-ka shanaad column-ka lixaad column-ka toddobaad column-ka sideedaad column-ka sagaalaad column-ka tobanaad waa 10 column imsa row rowgii koobaad iyo rowgii labaad iyo rowgii saddexaad wuxuu ka kooban yahay 10 column iyo 3 row intaas samaysanaysaa hay maxaa ku kala qoraya waxaad ku kala qoraysaa faham aad iyo aad u baahanto fiirso halka waxaad ku qoraysaa subnets maxay isku macnaahaye networks waxa ka dhigan tahay halka waxa lagu qorayo waxyaalo network ah tusaale subnet maxaa macna network 1
network 2 network 3 network 8 maxaa jeedaa ka cilmidii network 1 weeyaan kani kana waa network 2 kana waa network 4 kana waa network 8 kana waa network 16 network 20 network 64 network 120 network 200 afar 60 kod maxaan ka wada waxaan ka wada qodobka fiirso network 7 network bas mid ah waxaan ka wada haddii hal shabakad samaysmanto waxa meesha imanaya 256 computer ayaa ee hoos imanaya hostis macnaheedu waxay shabakadani mise computer baa soo iskale haddii hal shabakad sameeyno qodobka fiirso haddii hal shabakad sameeyno waxa noo imanaya 256 computer baa hoos imanaya ama shabakada hoos imanaya sababna maaska qaadanaysa shabakadaasina waa 24 waa /24 mala sota ama si IDR kale noqon haddaan laba shabakood aanu kala jibino ciwaankeeni qodobka fiirso laba shabakood aan ciwaankeeni u kala jibino shabakad walba waxa hoos imanaya 128 computer shabakad walba imisa hoos imanaya 128 computer shabakad walba waxa lahaanaysa shabakad walba maxay lahaanaysaa baan ku CIDR ka ama 7/25 haddii aanu laakiin afar shabakood ciwaankeenu kala jibino qodobka shabakadeeni hay 192.168.1.0 ee leeyahay kala jibiyo nugu supervisor kala jibiya haddaan afar ciwaan kala jibino shabakad walba imisa computer baa hoos imanaya 64 computer host macnaheedu waa inta computer hoos imanaya shabakad walba waxay lahaanaysaa CIDR ama 7/26 laakiin haddii shabakadeenu kala jibino state shabakadood halkeena ciwaana saacad ee supervisor kiinisi 192.168.1.0 waxa stakiyaha haddaan u kala jibino buu ku yiri 8 ciwaan u kala jibino shabakad walba 2 computer baa soo iskaliya waxaan lahaanaysaa CIDR kama 7/27 laakiin haddaan u kala jibino 16 shabakad halkeena ciwaan waxa ma shimanay shabakad walba hoos imanay 16 computer oo CIDR ka ama 7 ma isku noqonay /28 halkeena ciwaan u kala jibino 23 halkii ciwaanba 23 network haddaan u kala jibino halkii shabakad wax soo iskalaya 8 computer baa soo iskalaya 7 ma iskeedina uu noqonay /29 ama CIDR ka haddaan ciwaankeenu kala jibino halkeena ciwaan haddaan u kala jibino 64 ciwaan u kala jibino halkeena ciwaan haddaan u kala jibino 64 ciwaan halkii ciwaan baa soo iskalaya 4 computer baa ku abtirsanaya 7 mask ama CIDR kuna uu noqonaya /30 buu noqonaya haddii halkeena ciwaan aanu kala jibino 128 halkii shabakadood baa soo iskalaya halkeena ciwaan baa ku haddaan u kala jibino 128 ciwaan halkii ciwaan baa soo iskalaya 2 computer 7 maskeeno noqonaya /21 halkeena ciwaan haddaan u kala jibino 256 ciwaan halkeena ciwaan haddaan intaas ciwaan u kala jibino halkii ciwaan baa soo iskalaya hal computer CIDR kana wuxuu noqonayaa /22 si kale wili step 1 kiwan wadaadan isleeyahay fahmay waxa sameyn karaysaa haka marka duwan qortid 1 ku dhufo waa 2 ku dhufo 4 2 ku dhufo 8 2 ku dhufo 6 2 ku dhufo 32 2 ku dhufo 64 2 ku dhufo 182 ku dhufo 256 markaad ka qortid markaad column ka dhamaystirtay qortid hoosiga saad qortid waa cagsigiyo marka maxaa ugu horeeyay wan baa ugu horeeyay wan ku wada ka ugu sheemara waxa ku xigay tuugana waynu dhaka shamara waa isku cagsi marka hore saasadu diim kana dhaka ma soo wada insha Allah haka maxay noo yaala 4 ka waka haka maxay noo yaala 8 ka waka 64 weeya 32 waa kan marka waxaan ka wada cagsigun baad u soo wadi marka kan qortid marka ka soo qortid ka kale dhakaas baad ka soo bilowdan 256 meel ugu horeysiin 182 waad soo wadi hoos baad isu socon la socota sabna maskana waxa weeyaan waxaad ka bilow doontaa /24 waxaad ku joojin doontaa /22 oo /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
talaabo ku waxa weeyaan aad samaysay table-ka sample subnating table la yiraahdo marka table-ka samaysatid table step 2 aad samaynaysaa waxa weeyaan inaad su'aashii ku noqoto tiraadi imse halkeena ciwaan imse loo kala jibinay marka table-kii soo samaysay su'aasha labaad isweydiinaysaa ama step 2 gaad dhaqaas waxa weeyaan ciwaankeeni imse loo kala jibinay bal ku noqo waxa loo kala jibinay imse 3 ayaa loo kala jibinay imse loo kala jibinay 3 ayaa loo kala jibinay imse loo kala jibinay 3 halkeena ciwaanaha 192.168.1 halkaas 1.1.0 imse loo kala jibinay 3 subnets ama 3 networks ayaa loo kala jibinay soma marka halka taagan tahay taas waa talaabada inaad ogaatid imse ciwaan baa loo kala jibinay talaabada saddexaad aad qaasi step 3 step 2 waxaad ku soo ogaatay inta ciwaan loo kala jibinay saddex waa soma haddaan ku weydiiyay 3 subnets baa loo kala jibinayso ama 3 networks leenkeena ama kala rowgeena ugu sareeya 3 ma ku jira ba 3 ka baad ma 3 kuma jiro waxa ku jira meesha 1 baa yaala 2 na waa yaala 4 na waa yaala 8 na waa yaala 64 waa yaala 32 waa yaala 64 baa yaala 128 baa yaala laakiin wax meel yaala 3 ma yaalo haddii sa 3 uga xashid waa inaad tiraahdaa 3 maadaama aan keeba ugu soo dhow adoo eegaya kor u eegaya 3 iyo ugu dhow 3 wuxuu dhaxeeyaa 2 iyo wuxuu dhaxeeyaa 4 2 qaadamayno laakiin waxaan qaadana ka sareeyo oo ah 4 baan qaadana wala socota haddaba markaad ka 4 ka qaadatid markaan 4 ka qaadanay 3 subnets soo noqday laakiin maxaan helnay 4 subnets baan helnay maxaan helnay 4 subnets baan helnay maxaan helnay 4 subnets haddaba marka 4 subnets aad heshid haddaba marka 3 subnets ka helayn 4 ka uma tagneenba wala socota marka inta heshay haddaba waxaad calaamadsan doontaa la marin doontaa 4 kan dooranay iyo rowga ku beegan column-ka ku beegan oo dhan calaamadsan inta kale oo dhan waan iska iloobina shanteeni su'aalood waxa nooga jawaabaya column-kaas ay nooga jawaabaya column-kan calaamadina ayaa nooga jawaabaya column-kan ka leeyahay subnets-kii noogu dhawaa haddana marka qaninka iska biina kaas ay nooga jawaabaya dhammaan kaas ah nooga jawaabaya kaas insha Allah talaabada saddexaadna waan calaamadsanaa kuwa kale waxaan calaamadsan weynay inagu waxaan mar walba ka duureynay 3 subnets ama 3 networks oo sumide dadna saddexdii maadaama aan ka weynay waxaan helnay 2 iyo 4 iyo 3 u dhaxayso dadna ka saraan dooranay soma maadaama ka saraan dooranay oo 4 ah rowgaas ama column-kaas aan calaamadsanaa oo ah 4/64/26 shanteeni su'aalaha ahaa network ID ogaada broadcast-ga ogaada subnets ogaada number of usable ogaada host ID range ogaada shantii su'aalada column-kaas ay naga jawaabayaan calaamad inta kala iska kala doo step 4 inta meel bad ku soo qoran doontaa bahalkaaga column-kaan calaamadinay inta kala iska kala column-ka maartay 6 haddaan baabiyo column-kaas inoo muhiimada inta kale wax ka soo qaad ma leh waxa kale skill waxa kala martay column table-ki inta kale waa skills intaas ay inoo muhiimsan waxa ku qoran tahay 4/64/26 haddaba step 4 talaabikood maxay sample-kaan samaysay sample simulating table-ka aan sameeyay step 2 waxaan isweydiinay imsa ciwaan baa loo kala jibinayay step 3 na 7 maski noogu dhawaynta raadinayno 3 raadinay 4 bay noogu dhaw kiman soo calaamsan step 4 kiid waxaad samaysanaysaa table-kana solution table-kana la solution table-kan wuxuu ka koobay shantii su'aalood la weydiiyay maxay ahayn network ID waan la weydiiyay waxa kale la weydiiyay 7 maski waan la weydiiyay soma host ID range-go tin la weydiiyay soma number of usable host tin waan la weydiiyay soma broadcast-ina waan la weydiiyay mid walba xiyawada la isaagidana step 4 waa inaad samaysataa table-ka wuxuu ka koobnaanayaa 5 column ah network ID column ah subnet maski column ah host ID range column ah number of usable host column ah broadcast ID imsa row ka koobnaanaya wuxuu ka koobnaanaya inaga imsa subnet baan soo gaan imsa subnet baa inoo soo baxay 4 soma oo 4 ka koobnaado noqda 1 2 3 4 yaanu ka badan ilaa halka 4 ku soo xadidnay imsa ciwaan bay noo sameysmaya halkiina ciwaan
inagu imsaan rabin eeg hal ciwaan baan haysan mar walba intaa kadib inagu hal ciwaan baan rabnay soo inagu hal ciwaan baan haysan imsaan rabin inaan kala jibino saddex laakiin saddex waan heli weyno waxa ugu dhawaan kala jibin karayna ciwaankana waxa waa afar for subnet sidoo dhigat inagu hal ciwaan baan haysan waxaan rabin inaan saddex u kala jibino saddex maanu helin leenka column-ka waniga ka weynadii saddex laakiin waxaan helay mid u dhow afar ah marka afar baan kala jibina waxaan kala jibina afar marka talaabada afraadna maxay ahayd step 4 kaaga maxay ahayd step 4 kaaga inaad sibisay table kan la solution table kan oo ka kooban column ah network ID column ah subnet masking column ah host ID range column ah number of usables column ah broadcast ID taas waxa step 4 step 5 u kale step 5 u kale waa step 5 halkan waa khaday waa step 5 waa step 5 markaan diyaariyay ma khada ka waa step 5 waa 4 ba ka soo gudbay sax number 5 wala column kaas aan bixinaa column kan macnaheedu maxay tahay waxaan ka dhigan tahay waxaan ku weydiiyay adigan ku weydiiyay ciwaankeen ugu horeeyay waxa ciwaankeen asaliyan original network address-kan wuxuu waa 192 ciwaankii markii hore waan haysanay shirkadda dawlad xafiiskeeda wuxuu 192.168.1.0 waa soo maha waxa leedahay waxa oranaysa afar tow inagu waxaan haysanay mar walba inta aan ka duulnaa office hal ciwaan baan haysanay soo saddex baan u kala jibinay soo maha laakiin waxaan helnay in afar loo kala jibiyo oo saddex waan weynay soo hadaba afartaada ciwaan ma kala jibiyo kooda ugu horeeyo wuxuu lahaanayaa kii asaliyanka ahaa oo 192.168.1.0 waa kii asaliga ahaa shabakadaada koobaad ee dhakanahay ee loo yeeray office-kaaga loo sameeyay office-kaaga ciwaanka yeelanaysa waa ciwaanka originalka yeelanaysa originalka ayay yeelanaysa originalka ayay yeelanaysa adiga arko 192.168.1.0 halkan ku qornay iyo kii originalka waa isku mid mar walba shabakadaada ugu hayso waxa yeelanaysa original network address-kaaga yeelanaysa shabakadaada labaad waxa yeelanaysa inta hore waa isku mid 192.168 dhammaan shabakada meesha ku yaala oo dhan saddexda guud waa isku mid 192.168.1.1 192.168.1.1 saddexda column saddexda section waa isku mid laakiin waxa loo kala duwanaanayaa halka shabakadaada koobaad 0 bay qaadanaysaa shabakadaada waxay qaadanaysaa 64 waa ka 64 ka yimaad waxa leedahay 64 wuxuu ka yimaaday halka maaragtay halka qodobka oo fiirso anita la masax qodobka ilaa waxaan nidhi afar shabakadood la sameeynaa halka qodobka imsa shabakadood la sameeynaa afar shabakadood waxa la sameeynaa shabakadii koobaad shabakadii labaad shabakadii saddexaad afar shabakadood la sameeynaa shabakada koobaad maxay yeelanaysaa original network address-ki shirkadda dhex yaala ama xafiiska dhex yaala wuxuu 192 shirkadu walba network ID yeelata ama ciwaan gooniyo 192.168.1.0 soo shabakada ciwaankeedu waxa weeyaan halka 0ga smarti halka 0ga waxaad u geynaysaa 64 goy 0 iyo adaan ku daay 0 iyo waxaad isku geysaa 64 isku gey waa 64 soo shabakada labaadna maxay yeelanaysaa 64 goodka ugu dambeeya 192.168.1 inta waa ka samsama marka 0 iyo 64 marka isku geeyna waxa la sameeyay waa 64 haykaasna waa network ID-ga labaad sama ama shabakada labaad ciwaankeeda shabakada saddexaad ciwaankeedu wuxuu noqonayaa 192 inta hore waa ka same saddex section ugu hore 192.168.1 hadaba 64 ka inoo yeelan mar maxaan sii geynaa 64 mar walba waxa ka inoo yeelan sii geynaa 64 ka inoo yeelay iyo waxa isku geysaa 64 kan isku geey waxa soo baxay 100 8 baa soo baxay waa shabakadii saddexaad shabakada afraad ciwaankeedu waxa inagu saddex baan u baahnaysan laakiin kan afraadiyana soo raaciyay saddex baan weyn marka waan iska raacsana mustaqbalkaan isticmaal doon hadii supervisorku uu gadaal uga baahdo shabakad kale shabakada wanaagsan naafoorka laakiin marka baahideena si markii wax xafiiskan sameeynay kofeega looma baahnay marka waan iska sii diyaarsanaa 192.168.1 inta shabakad walba ka sii laakiin ay kala duwanaanaya shabakada ugu horeysa waa 0 ugu dambeysay shabakada ku xigta 64 shabakada ku xigta /29 shabakada ugu dambeysana 128 maxaan isku geynaa iyo 64 isku gey
waxaa soo baxaya boqoliyo koobiyo waxaa soo baxayaan filaya boqoliyo aka step 5 kan wili wadnaa boqoliyo 290 baa soo baxaya meela socota network ID-gana saasoo sameeyay network ID-ga maxaad sameeyaysaa waxa leeyahay afar shabakadood inagu saddex baan rabnay laakiin afar shabakadood maadaama saddex wala afar shabakadood baa noo suurta gashay soma min mustaqbalkan ismaan doonaaye shabakad walba in yar way isugu doontaa insha Allah haye hakaasi noo marti soma haka wada network ID-gana saa loo sameeyo network ID-gu waa maxay waa shabakad walbaaba ciwaan gooniye lahaanaysa meela socota siimka caalamka ee dalkeena joogno telesom alaamad lagu garto male oo male 065 oo kale wayna shabakad walbaaba ciwaan gooniye yeelata 192 shabakadada koowaad ee office-ka loo sameeyay ciwaankaas ay yeelanaysa shabakadii loo sameeyay qolada storage room-ka shabakadaas ay yeelanaysa qoladii loo sameeyay ee customer-ka ama public use-kana ee kafeegeeni wili mar walba nido kaayo shabakadaas shabakadana afraad inagu ma baahna oo supervisor-ku inama gudi laakiin haddii mar loo baahnaado ayaan adeegsan doonaa talaabadii shanaataas ay step 5 6 ka waan khaldimo kuli waa step 5 waa step 5 weyn waa step 5 step 6 kale 6 step 6 oo kale step 6 ku kale step 6 ki shanteeni su'aalo mid doon ka jawaabna soo network ID shabakad walba network ID-geedu wanaagsanaaday step 5 step 6 wana ogaanaa shabakad walba 7 maske shabakad walba 7 maske soo ogaano halkeena hore ku noqo step 3 markaan joognay step 3 joognay ila shabakad walba waxa loo baahan yahay 7 maske inay yeelato soma halkan 7 maske na soo shabakad walba waxa yeelanaysaa /26 bi shabakad walba yeelanaysa 7 maske oo ismid eeg 7 maske soo raaco column-kiina inta kale waa niga close ka kale inta kale inama khusayso intaan goobada gelinay shabakad walba waxa yeelanaysaa /26 afarta shabakadooda saddexdii marka loo baahnaada iyo tamadho mustaqbalka loo baahnaan doono afartooduba 7 maske oo ismid waa /26 aan ku weydiiyay markii asali yahay ee mareynay awligan aan la kala jijibin 7 maske shirkadda maxay ama ciwaanku wuxuu 192.168.0/24 baa soo laakiin markii lagu sameeyay subnetting-kii 7 maske isbedel smart muxuu soo baxay /26 uu 7 maske soo baxay 7 maske soo baxay /26 ayuu soo baxay ama CID arkay taas waxay ahayd step 6 bay step 7 kale talaabadii toddobaad kale talaabadii shan waxaan network ID-ga step 5 ay taasay soma 7 maske muxuu step 6 ba soma step 7 waxaan ka hadlaynaa number of usable war dhageyso ciwaankan 191.68 ciwaanka ah imsa ciwaan u fiirso waxaan isweydiinaynaa qodobka marka taagan number of usable aka waxa loo soo gaabiyay number hashtag waxa loo soo gaabiyay number of usable hoos wuxuu noo sheegayaa war ciwaankeena ah 192.68.2.0 imsa ciwaan ayaa computer la siin karaya ilaa ka waxa noogu qoray markaan taagnay hostigii msuha ciwaankeena agu fiirso laba kala jira ciwaankeenan hostiga imsa weeyaan waa 64 macnaheedu waxa weeyaan inta ciwaan ee hoos man karaysa shabakad walba hoos man karaysa 4 ciwaan laakiin imsa laga adeegsan karaya imsa computer la siin karaya waxa la siin karaya tambahaniya waxaan siin karaa waa step 7 ba mar laga yana khalqan yar gaadhay laakiin example kadama ku sii fahmi doontaa 64 address-keena kan ka keen halkaas ka keenay mar walba ka san ka guulina imsa waan ba shabakad walba way sameeyay 64 waxaan ka jaraynaa laba 64 keeni laba ciwaan baan ka jaraynaa laba inoo ka jara laba ka jar maxay noo soo bixin 26 ciwaan ayaa la adeegsan karay oo labadeen maxaa loogu gooy hal ciwaan waxa loo gooy network ID-ga ayaa loo gooy soo halka kale maxaa loo gooyn doonaa broadcast-ga loo gooyn doonaa marka 64 dad isla laba lagu gooyay ku saaray waxaan leedahay 62 ciwaan ayaa shabakad walba laga adeegsan karaya
oo computer la siin karaya ila computer wada ciwaan buu raba samaha 64 ta ciwaanba ee kan 64 bayno yahay 64 ta ciwaanba lama wada adeegsanayo laba lagu goynaya labada midna network ID ga qaadanaya midna broadcast ID ga qaadanaya imsa soo 62 labada kala soo haray ayaa maxay noqonaya number of usable host marka afarta shabakadoodba number of usable hostigoodana waa isku shabakad walba 62 ciwaan ayaa computer laga siin karaya labada soo haranaya laga siinaya network ID ga iyo broadcast ID ga 62 labada wana kan kugu sheego maxaan ku ri waa network device ID networkada ayaa ID looga dhigay address looga dhigay laakiin 64 talka yaala mar walba qacida ka inoo hay 64 mar walba ka hostigeeno yaala mar walba ka hostiinigo yaala 64 soo mar walba ka inoo yaala laban ku goyna midna network ID ga dhig doona marna maxaan dhig doona broadcast ID ga taas waxay ahayd step 7 baa soma step 5 waxaan ogaanay network ID ga step 6 kiina 7 ayaan ogaanay step 7 kiina waxaan ogaanay number ciwaanka imsa 64 ciwaan bay noo yaalay 64 ta ciwaan imsa ciwaan baan computer ka siin kareyna 26 ciwaan labada soo hareena midna network ID ga midna broadcast step 8 ku kale maradan ku celiyo step 5 maxaan ka soo hareyn network ID ga step 6 ki 7 maski step 7 ki ciwaanka halkii ciwaanba imsa 64 ciwaan imsa ciwaan ayaa computer laga siin kareeya 26 ciwaan waxaana mana broadcast ID ga oo step 8 ki ah step 8 broadcast waa maxay step 8 wuxuu khuseeyaa broadcasting oo muxuu yahay muxuu sheegayaa broadcast waa maxay waa broadcast waxaan rabnaa war ciwaan tusaale u fiirso qodobka broadcast ID ga wuxuu noo tarayo war ciwaanka magacii 192.168.1.0 sooma imsa computer baa hoosmanaya waxa hoosmanaya 26 computer baa hoosmanaya hadaba 26 ka computer haday wada rabaan inay wada hadlaan iyagoo jooga shabakada ciwaankay mar kaliya ku wada hadli karayaan ayaa la yiraahdaa broadcast ID oo macnaheedu tahay 26 kan computer ee hoos yimaada shabakada 192.168.1.0 ciwaankay ku wada hadlayaan waa 129 166.1.163 meel sada shabakada martay shabakada labaad ee 192.168.1.164 waxa iyagana hoos yimaada 26 computer ba hoos yimaada hadaba 26 ka computer haday rabaan inay wada hadlaan mar qura oo shabakada hoos yimaanaya .1.64 ciwaanka ku wada hadlaya waa ciwaankii waa 129.168.1.720 sidoo kale shabakadan saddexaad ee 192.168.1.200 haday rabaan waxa hoos yimaada 26 computer 26 ka computer haday rabaan inay war wada hadlaan with same time ay fariis ku diraan ciwaanka adeegsanay waa ciwaankii 192.168.1.190 bay adeegsanayaan sidoo kale shabakadeena ma dhow mustaqbalka aan u gudniganay saddexda kuma la rabaay tan mustaqbalkeena ee 26 ka computer hoos yimaadaan iyagana 26 computer haday ma dhawaan helo ay rabaan mar wada hadlaan ciwaanka ku wada hadlayaan waa 192.168.205 hadaba hakay ka keentay tirada meenayn hakay laga keenay miyaanay waxa laga keenay shabakada ciwaankeedu wuxuu network ID waxa 192.168.1.0 soma shabakada labaad intee ka bilowmata hakay ka bilowmata waxa ka bilowmata 64 bay ka bilowmata Soomaaliya midkata 63 shabakada hore u fiirso shabakada hore ee halkan ku calaamadiyay 7 mask broadcast ID waxa uu noqonaya hadalkaasi isku xidhan fiirso waxaan ku shabakada koobaad network 1 network ID 1 markay rabto broadcast-geedu wuxuu noqonayaa shabakada ka dambaysa ciwaanka ka soo horeeya shabakadan daba waxa ka bilowmaysaa shabakada labaad 64 bay ka bilowmaysaa Soomaa iyada waxa uu noqonaysaa 63 ciwaankeedu noqonaya broadcast ID-geedu sidoo kale ciwaanka shabakada labaad aan baabiyo sidoo kale waxa adeed faantada samaysan karaya mid sidoo kale shabakada labaad ee 192.168.1.64 si broadcast-idana waxa uu noqonayaa shabakada saddexaad halkay ka bilowmi doonto ciwaanka ka soo horeeya waxa ka bilowmi doontaa 182 iyadana waxa noqonaya broadcast ID 107 ayaa uu noqonaya meelo socda
ملفات أي شبكة صدحات يبررك استيدي محاول نقنية شبكة أفراد عوانك كصورية سمع شبكة هذا صدحات نتويك أيدي جاكان صدحات إذا بررك استيدي محاول نقنية شبكة أفراد كي قبل أمتى بقولي الله بيسقاش مركته بقولي كوبي سقاشة 192.67 أنت هروا اسمين دي بقولي كوبي سقاشة أيو نقنية بررك استيدي جد شبكة أفراد يلا بررك استيدي محاول نقنية شبكة كدام بيسا هي عوانك صري waxaa leedahay shabakada kama dambaysa hadaan shabakada ka dambeeyay ciwaanka ay ku wada hadlaysa waa 250 ilaa iyadoo ugu dambaysa soma shabakad kala ka dambaysa may broadcast-geedu wuxuu noqonayaa 250 taasina waxaa step 8 hadaa tusaale fahmiyo tusaale damad ku fahmi doonto step 9 step 5 waxaan soo sheegnay network ID-ga shabakad walba yeelanayso step 6 waxaan ka soo wareynay 7 mask shabakad walba yeelanayso step 7 waxa yeelay ka waranay shabakad walba ciwaana laga adeegsan oo 260 tahay 64 baa qodaan laban ka jarnay midna network ID-gaan u dhignay midna broadcast-gaan dhignay 260 baa inoo soo haray sooma waxaan isweydiinaa talaabada sagaalaad ugu dambeysay la su'aaladan lagu diso su'aashadan ka jawaabina hoos ID range oo macnaheedu tahay ilaa waxaan sheegnay 260 sooma waxaan sheegnay u fiirso waxaan 260 ciwaan ayaa laga adeegsanaya sooma waxaan sheegnay 260 ciwaan ayaa laga adeegsanaya hadda ciwaanka koowaad computerka koowaad ciwaankee la siinaya computerka ugu dambeeya loo xidhay qodobka fiirso waxaan 260 shabakad walba 260 computer ba ayaa shabakad walba 260 ciwaan ba laga helaya sooma computerka ugu horeeya shabakada ciwaanka la siinaya waxa 192.168.1 waxa ka dhigan tahay tan waa network ID-gaaga sooma 192.168.1.0 waa network ID-gaaga ciwaanka ku xiga wuxuu noqonayaa 192.168.1 sooma hade ilaa laga gaarayo 192.168.1 63 si kala dan kugu dhigo computerada waxa ciwaan lagu siinaya inta u dhaxaysa range-ka u dhaxeeya ciwaankaaga network ID-gaaga iyo broadcast-ga u fiirso ciwaanka network ID-gaaga waa 1 sooma numberka ku xiga waa maxay 168.1.1 sooma ayaa computer koowaad ciwaankiisa la siinaya oo looga dhigay IP address broadcast ID-gu waa 63 ciwaanka ka soo horeeya looga dhigay maxay ciwaanka ka soo horeeya maxaa looga dhigaya computerka 260aad ciwaankiisa waxa laga dhigay 192.168.1 62 shabakadaada labaad ee ciwaankeedu yahay 192.168.1.64 broadcast-ga ID-geedu yahay 192.168.172 uu yahay computerka koowaad ee shabakada soos kale ciwaanku qaadanayo waa maxay waa 65 computerka labaad muxuu qaadanaya 192.168.1 66 computerka saddexaad 67 saasoo soconaya ilaa laga gaaray computerka 62 uu qaadanaya 126 waxa jira 192.168.1 126 ciwaanka isla sidaas oo kale shabakada saddexaad ee ah 192.168.1 ee broadcast-geedu yahay 192.168.1 ee labiyo computer ciwaan siin ka dhisa computerka koowaad ciwaankiisu wuxuu noqonayaa 192.168.1 ilaa laga gaarayo 190.168.1 sidoo kale shabakada madam sawirkan dhistana ciwaankeedu yahay 192.168.1 129 ee broadcast-ga ID-geedu yahay 129.168 ilaa laga gaar 125 ee 260 computer ciwaan siin karaysa computer koowaad ciwaankiisu wuxuu noqonayaa 192.168.1 139 ilaa laga gaarayo 192 computerka ugu dambeeyay waxa la siinayaa computerka 62 waxa la siinayaa 192.168.1 256 waraalka soo sagaalka step la maraya tusaaleyaasha dambe saddex tusaalaan qaadan doona haday ka fahmid ka labada fahmi doonto waxa lagu leeyahay halka soo finally one subnets halkii ciwaan subnets maxaa isku macnaa iyo network soma halkii shabakada koowaad ee office-ka ciwaankeedu wuxuu noqonayaa 192.168.1/26 ka ku yimid waa 7 maskide ana soo shabakada koowaad ciwaankeedu wuxuu noqonayaa 192.168.1/0/26 buu noqonayaa 7 maskide shabakada labaadna 192.168/26 shabakada saddexaadna 192.168/28 shabakadana afraadna mustaqbalka haduu ilaahay meherada uu sii kordhiyo ayna adeegsan doona
intaas ku soo koobida haddaad fahmi weydid insha Allah iska day video ku xiga ayaan isla tusaale waan bedeli doonaa numberku ma bedeli doona mooyaane 9 step waan mari doonaa ilaa inta laga fahmiyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.